haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaatay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aad ahaatee aada rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan. waa taqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi. fi suurati الracd, fi suurati اlisra, fi suurati اlanbiyaa, tawba, saba, saad, xadiid, xashar, saf, aljumca, ataqaabun, suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdih. onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya. wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabixna waطayr. nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray, aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya. bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaatu الsabc wاlأrض waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura. cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira, toddobada cir iyo dhulba waxaa jira, iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya. wain min shayin laa yusabixu bixamdih, shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda. cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay masalak u khaasa, dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlأrض wالطayru saafaatin kul qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun. mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya. bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo. mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyay. ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna, waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa. cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaanaه wa tacaala. wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi weeyaan. waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam طabraani soo saaray, sheekh albanina saxiixa ku tilmaamayo. wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqa isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay. nabigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyay, keli maaha. weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakrun wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay. ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa. dadka fadhiyo oo dhamina dhagxantaa uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay. intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar. abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururixi. weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi. abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar, markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen. dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyay. markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi. markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi. qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay, dadkaygii kale mau tasbiixsanin. idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan. waxaanu sheegayaa in xataa qururux
ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadka o dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyooday waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa wax weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaa suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lardi lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabbika alacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla 7 suuradood 5 suuradood oo qur-aanka ka midana xamdaladay ku bilaabmaan alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii khalaqa الsamaawaati walarda wajacala nuura waظulumaat yani ancaam iyo baqara iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwa iyo saba 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo ah waa soo aroortay 4 jeer ficil mudaaric iyadoo ah waa soo aroortay 20 jeer siqatu amr iyadoo ah 18 jeer siqatu ismi faacil iyadoo ah maratayn siqa masdara iyadoo ah 2 goor siqa ism iyadoo ah 41 jeer yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mida tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culimmadu tasbiixda weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badan ee qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan ina arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay leh waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan nabiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfaca badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nabiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashirku fii amri sababtu u dalbanayaa waa maxay
كي نصبحك كثيرا كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلهي walaalkayna rasuulka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kugu tasbiixsanno oo uu ila xoojiyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahay nabi yuunusna waynu soo marray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nabiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkarimay sida buurta eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nabiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadli ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ah kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kathiiran wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nabiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nabiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba wasubxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yahi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilaahay markaa wuxuu leey waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلهي وحد المامية قوة آيات كيغا الرمية إنما يؤمن بآياتنا آيات كيغا قوة الرمية وقوة وقوة بالة المامية وقوة إلهي مركا الله حصه إلى حصوصيه هوبتا إيغو سجود سن وصبحوا بحمد ربهم بإلهي إلهي وتصبيح صدى وكل هيا حمد قال له waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyahy masaalixiinta qura maya ilaahay malaa'igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabbixuun bay tilmaamayeen yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim malaa'igtaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay tasbiix laazimaan ahlu jannaha dadka khayrka badan leh ee guulaystay ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay ku dhawaaqayaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamd iyo tasbiix baa ilaahay kaga warramaya ahlu jannu dacwaahum fiiha subxaanak ayaa rabbi ku sheegaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba tasbiixdu diinta markaa maqaam saray kaga jirta dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa la isku dayay in lala dagaalamo laakiin waxaad moodaa in la raaciyay wixii diintu faraysay dadka waa suufi iyo waa kan baa la yidhi dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yara haleela markuu ka baxo
tira aan la garanayno faraacaynkaa la yidhahdo subxaan allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga. laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen, iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannahy oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato. nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abidar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi, nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah, waxyaabaa alla u jeceliya ma kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi. haya noo sheeg baa la yidhi ilahay rasuulkiisa, ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi. kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mida subxaana allahi wabixamdih. xadiis labaada abidar uu warinaya wuxuu leeyahy, nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu, warka maxaa u fadli badan? nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih, wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadih, oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih. idan ayuha alaxiba, tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa, cibaadaadkay culamadu yidhaahdaan, cibaadooyinkaan waktiga lahayn, shuruud lahayn. waxaa laga yaabaa salaad, soon, xaj shuruuday leeyihin, waqtay leeyihin, waa la mudeeyey, waqtiyadaasunbaa la sameeyey. ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay? cibaadada mutlaqa ah, fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto. waxaanu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati. haweentii wardiday uu nebigu ku soo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi, oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi, ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa, cadada khalqihi, tirada makhluuqaadkiisa, iyo zinata carshihi, iyo ridaa nafsihi, iyo midaada kalimaati. idan ayuha alaxiba, tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto. cumar bn lkhadaab maxaa laga sheegaya, walow kuntu musabixan la atmamtu, salaaddii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi walow kuntu musabixan, haddaan tukanayo sunno, yani haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay, walow kuntu musabixan la atmamtu. idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa. sharcigu intaba wuu soo arooriyey. shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa, waa inaga aayaadka soo aragnay, walaqad naclamu annahu yadiqu sadruk bima yaquuluuna fasabix ilaha yidhi. nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxayna idhaahno subxaana aladii sakhara lana hada wama kuna lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun. waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam, nicmo hadday kuu cusboonaato, falamaa afaaqa qaala subxaanak, wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay, dib buu u caafimaaday. waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak. waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiya, fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi. waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa, qaala awsatuhu maa lam aqul lakum lowlaa tusabixuun, ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaha illaa ant. waxay sheegaysaa in la tasbiixsado. markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, maalintii 100 jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa, wain kaana milu zabadi lbaxr, saxiixeynku ku yaallay, xataa hadday xoorka badda leeg tahay, at least xataa haddaynu dhahno saqaa'irta, oo saqaa'irta maxaa ka badan? subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo, ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa, imisaa khayr aad u malaynaysa. waagu markuu baryaaba inu war bilowna
haddaan adigu warramayno mid warramaya dhegaysanaysa ama TV ha ka warramaya ama radio ha ka warramaya ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad saqaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waad 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakilku